بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه وأحيا سنته إلى يوم الدين. أما بعد، siirada nabiga ayaan ku jirnay asiira alcatira, siiradii nabigeena caleyhi salaatu wasalaam. waxaan ka soo hadlalay fatxu maka sanadkii 8aad. marxalada saddexaad ayaan bilaabaynaa, almarxalatu athaalitha bacda fatxi maka, wahiya aakharu marxalatin min maraaxili xayaati rasuuli sala allahu caleyhi wasalam. hiya aakhiru marxalatin, marxaladii ugu dambeysay bay ahayd min maraaxili xayaati rasuul sala allahu caleyhi wasalam. marxaladii nabiga noloshiisa ugu dambeysay bay ahayd. tumathilu waxay matalaysay annataa'ij alatii ahmarathaa dacwatuhu alislaamiya bacda jihaadin dawiil. marxaladani waxay matalaysaa midhihii dacwada nabigu dhalisay jihaad dheer kadib, oo canaa mashaakil kadib, yacni canaaga waxa weeyaan dhibaato iyo tacab badan uu nabigu soo maray kadib midhihii la gaadhay. wa mataacib wa qalaaqil, dhibaatooyin iyo qalaq iyo fitnooyin wadiraabaad wa macaarig wa xuruub daamiya. marka nabigu wuxuu soo maray tacab badan iyo iska horimaad badan iyo idiraabaad iyo dagaalo badan daamiya, oo dagaaladee laysku dhintay weeye. waajahadhaa diilata 20 caaman, taasoo nabiga ka hor timid ama soo wajahday 20 sano kadib. marxaladana marka timid oo natiijo ahaana midhihii ahayd. wa kaana fatxu makata huwa akhdaru kasbin xasala calayhi almuslimuuna fi hadihi alacwaam. maka furitaankeedii la furay waxay ahayd yani natiijada ugu weyneyd ama ugu fiicnayd oo muslimiintu ay gaadheen muddadaa dheer. tagayara liajlihi majra alayaam, taa darteed baa ayaamihii ay isbedeleen dartii. wa taxawala bihi jawu lcarabi, carab jawigeedii oo dhan baa isbedelay. waqad kaana alfatxu xaddan faasilan bayna almuddati asaabiqati calayhi wa bayna maa bacdahu. marka fatxu maka waxay ahayd faasilkii kala saaray muddadii ka horreysay iyo wixii ka dambeeyey, oo macnaha dadku islaamka ay soo galeen. fa ina qurayshan, qolada qoraysh la yidhaha, kaanat fii nadari alcarab xumaat addiin wa ansaari. marka qolada qoraysh la yidhaha waxay ahaayeen, marka dadka say u arkayeen yani la fiiriyo, dadka diinta ilaalin jiray bay ahaayeen iyo dadka diinta u kaalmeeyey. waalcarabu fii dalika tabacun lahum, carabtuna arrintaa way ku raacsaneen. fa khuduucu quraysh kolkay nabiga macnaha soo hoos galeen ay u khuduuceen oo laga reeyey, yuctabaru alqadaa alakhiir, waxaa loo dadku marka ay u arkayaan yacni intii u dambeysay cala diin, diintoodii alwathani, diintii wathaniga ahayd halkaasay ku dhammaatay fii jasiirati alcarab. marka waxyaalihii diinihii wathaniga ahaa ee carabtu aaminsanaayeen iyo shirkiyaadkii ay markaa difaacaysay carabtu yaa halkaa ku dhammaaday ee qorayshtu ay hormariyeen. wa yumkinu an nuqasima hadihi almarxala ilaa sabxatayn. marxaladan waxaa loo qaybinayaa 2 qaybood: sabxatu almujaahada waalqitaal, mid oo ah mujaahada dagaal iyo qitaal waa mid. sabxatun tusaabiqu shucuub waalqabaa'il ila alictinaaqi ila alislaam. marka midi waxay ahayd sabxada hore waa dagaal iyo mujaahada, ta kalena waxa weeye sabxada labaadoo muslimiinta iyo shucuubta markaa islaamka inay ictinaaqaad in islaamka soo qabsadaan ayay usoo kala badanayeen. wa haataani sabxataani, labadaa qaybood, mutalaasiqataani way isku dhegan yihiin. tanaawabataa fi hadihi almarxala, marxaladan ay isu daba mareen weeye. wa waqacat kullu waaxidatin minhumaa khila alukhraa. markay midi tagtay bay tii kala timid. macnaha markii dagaalkii iyo mujaahadadii iyo dilkii iyo dagaaladii ay dhammaadeen,
marxaladan in diinta lasoo gala aa timid markaa kadib ilaa annanaa ikhtarnaa fi tartiibi alwadci laakiin waxaan doonaynaa buu yidhi sheekhu kitaabka qoray in tartiibtii caadiga ahayd aan ku soconno tii horreysay markaa tii dambaysay na'tii calaa dikri kullin min asabxatayn yaa mutamayizatan can ilukhraa labada sabxadoodba waan ka hadlaynaa inagoo kala soocayna tohorata kale ka soocayna wanadaran ilaa safxati alqitaal alsaqa bima madaa wanadaran inagoo fiirinaynaa ilaa ana safxata alqitaal dagaalku kaana alsaqa kii ku dhegan buu ahaa bima madaa xaggii hore ee jaahiligiibuu u dhowaa wa akharu munaasabatan min alukhraa yacni kolkaan fiirino inuu ka munaasabsan yahay qadamnaa fi tartiibi markaasaan saa usoo hormarin buu leeyahy sheekhu o waxa weeye waxaa loo hormarinayaa liannahu waxay ka horreysay marxaladii dagaalka iyo jihaadkay ahayd oo tawdiya u ahayd markaa dadku inay diinta soo galaan ghaswatu xunayn markii maka la furay kadib waxaa dhacday dagaal la yidhaha ghaswatu xunayn ina fatxa makata maka markii la furay jaa-a wuxuu yimid caqaba darbatin khaadibatin shaddahu laha alcarabu marka maka furitaankeeda waxaa yimid ina maka fakata jaa-a wuxuu yimid caqiba darbatin yani darba lagu dhuftay muslimiinta khaadibatin shaddahu laha alcarabu yacni carabtu waxay diyaariyeen inay darbo weyn ku dhuftaan muslimiinta burburiyaan kadib bay fatxu maka timid wa buuqitat alqabaa'ilu almujaawiratu bilamri alwaaqic wuxuu yidhi ina fatxa makata maka markii la furay iskama imanuune waxay darbo ku ahayd carabtii dhulka joogay oo dhan baa digada laga dhigay waana lagu kadiyey qabaa'ilkii ku wareegayay oo dhan bilamri alwaaqic dadkii ku dhowaa oo dhan darbadaasaa ku dhacday alladii kaasoo lam yumkinu lahaa an tadfacahu markaa iskama celin karin carabtu ama ma joojin karin diinta islaamka iyo fatxigaa walidaalika saa darteed lam tamtanic can alislaami ilaa bacdu alqabaa'il asharisa alqawiya almutaqadrisa markaa qabaa'ilka oo dhan badankoodu way soo dhiibeen ilaa qabaa'ilka qaar aan isla dhiibin baa jiray oo layidhi alqabaa'il asharisa waxa weeye qolo dagaal badan alqawiya oo xoog badan almutaqadrisa oo kibir badan wa fii muqadamatiha dadka marka ugu kibir badnaa ee mutaqadriska ahaa ee islaamka aan ogolayn buduunu waxaa ka mid ahaa qabaa'ilka qaar hawaasin iyo thaqiif laba qabiilo oo waaweyn yaa ka mid ahaa oo qabiilo waxaa la odhan jiray hawaasin qoladan waxaa la jiray thaqiif oo thaqiifta qoladii kolkaa daa'if deganeed bay ahaayeen waijtamacat ilayhimaa nasrun wa jushamun wa sacdun binu bakar wa naasun min bani hilaal wa kulluhaa min qays ciilaan waxaa markaa iyagaa u yimid oo la kulmay oo ku soo darsamay qabiilo la yidhaha nasar iyo jusham iyo sacd ibnu bakar iyo qabaa'il reer banu hilaal ka ahaaday oo dhammaantood min qays ciilaan qabaa'ilka la yidhaah asalkoodu ka soo jeedo ra-ad hadihi lbutuun qabaa'ilkaasi waxay arkayeen min nafsihaa cizan inay dad cizi leeyihiin wa anafatan an tuqaatila hada alintisaar bilkhuduuc an tuqaabila macnaha waxay isku dayayeen an tuqaabila inay ka hor yimaadaan haalad intisaarkan diintu gaadhee nasrigan bilkhuduuci ma khuduucaynay dheheen oo waxay dhaheen annagu isuma dhiibayno macnaha waxa weeyaan diintaa iyo nasriyahaas nabi maxamed sheeganayo isuma dhiibaynay dheheen faijtamacad ilaa maalik ibnu cawf annasari waxaa u yimideen nin la yidhaha maalik ibnu caws annasariya bay u yimideen wa qararat waxay qireen waxay go-aan ku gaadheen almasiira inay u socdaan ilaa xarbi lmuslimiin waxay dhaheen aan dagaalano muslimiintani waxa weeyaan waxbay nagama adkaanayaan aan iska celino aan dagaalana bay dheheen dayib masiiru lcaduwi wa nusuulihi biawdaas marka cadowgaas muslimiinta kasoo horjeedsaday way soo socdeen ilaa ay kasoo degeen meesha la yidhaha awdaas waa meel aan kasa kolkaa maka ka fogeyn walamaa ajmaca alqaa'idu alcaam qaa'idka markaa nimankaa madaxda u ahaa markuu soo ururiyey maalik ibnu cawf wuxuu go-aan ku gaadhay almasiir
ilaa xarbi lmuslimiina markuu go-aan kaa gaadhay saaqa maca annaasi dadkii buu la soo socday saaqa wuxuu soo kaxeeyey maca annaasi dadkii amwaalahum xoolahoodii buu soo kaxeeyey wa nisaahum dumarkooda wa abnaahum carruurtooda fa saara waa soo socday xataa nazala ilaa uu ka degay biawdaas ardu awdaas meesha la yidhaha wa huwa kaasina waadin tog weeye fii daari hawaasin waa tog ku yaala meesha qabiilka hawaasin la yidhaha degayeen bilqurbi kaasoo u dhow min xunayn meesha xunayn la yidhaha buu u dhow yahay laakiin waadi awdaas togga awdaas la yidhaha hayra waadi xunayn marka togga xunayn la yidhaha iyo awdaas waa kala laba xunayn isaguna xunaynkuna waadin tog weeye ilaa janbi dilmajaaz buu ku dhow yahay dabkiisa yahay baynahu wa bayna makkata 17 miilan min jihati carafaat kaa iyo waxa u dhexeeya makana waa 12 mayl unba xagga jihata carafaat marka la joogo toga carafaat marka la joogo unba halkaas unba kaga dhow yahay meel sii fog maaba ahaba marka waxay nimankaas ku soo urureen halkaa si ay muslimiinta uga hortagaan nacam majru lxuruub yaqlidu ra'ya alqaa'id marka dagaalkiibaa loo diyaar garoobayaa majrulxuruubi dagaalka majrigiisu socodkiisu yaqlidu u adkaanayaa wuxuu xoojinayaa ra'yal qaa'id ninka qaa'idka ah ee markaa madaxda u ah walamaa nazala markuu ku soo degay ninka cawfkaasi maalik ibnu cawf markuu soo degay bihawdaas markuu ku soo degay ijtamaca ilayhi naasu dadkii baa u yimid wa fiihim darkaa waxaa ku jiray durayd ibnu samata nin durayd ibnu sama la yidhaha baa ku jiray wa huwa sheikhun kabiir nin da-weyn buu ahaa laysa fiihi ilaa ra'yi unbuu markaa bixin karay wa macrifatuhu bilxarbi dagaalkana waa yaqiin marka duraydkaasi isagu wuxuu ahaa nin weyn oo wuxuu leeyahay marka ra'yi un baan adhadu ku beerin karaa maanta laakiin nin weyn baan ahay wa kaana wuxuu ahaa shaykhan mujariban nin weyn oo sheekha wax soo jarribay buu ahaa qaala durayd wuxuu yidhi biayi waadin antum xaggeed joogtaan hortogani waa kee qaalo waxay dhaheen biawdaas baan joognaa qaala wuxuu yidhi nacam majaalul khayli waa meesha farduhu ka dagaalamaan buu yidhi ya laa xasna darsin walaa sahla dahsin haa wuxuu yidhi meeshani laa xasna darsin macnaha ma aha meel laga murugoodo walaa sahla dahsin meel dhib yaroo lasoo gaari karana ma aha buu yidhi maxaa igu wacan buu yidhi asmacu waxaan maqlaa ruqaa albaciiri awrka hadalkiisi baan maqlaaye laakiin waxaabaan maqlaa buu yidhi awrka codkiisii wa niqaahal xamiir iyo damiirka qayladiisa wa bukaa asabiyi ilmaha yare ooyaya wa thuqaa ashaayi iyo waxa weeyaan iyo neefka adhiga ah codkiisa qaalo waxay dhaheen maxay buu yidhi waxani qaalo waxay dhaheen saaqa waxaa soo kaxeeyey maalik ibnu cawf baa wuxuu soo kaxeeyey maca annaasi nisaa'ahum dumarkoodii buu soo kaxeeyey wa amwaalahum carruurtoodii buu soo kaxeeyey oo xoolahoodii wa abnaahum carruurtoodii fa dacaa markaa maalik baa waxay dhaheen maalik ibnu cawf baa wuxuu soo kaxeeyey carruurtii iyo dumarkii iyo xoolihii iyo kulli fa dacaa maalikan maalik buu u yeeray wa sa'alahu wuxuu weydiiyey camaa xamalahu calaa daalik war maxaad saa u samaysay buu yidhi ood carruurta iyo dumarka iyo usoo kaxaysay xoolihiiba fa qaala wuxuu yidhi aradtu waxaan doonay an ajcala inaan yeelo khalfa kulli rajulin nin kasta dhabarkiisa ahlahu ahalkiisii wa maalahu maalkiisa liyuqaatila canhum inuu ka dagaalamo una cararin fa qaala wuxuu yidhi raacii da'nin wallaahi waxaa tahay buu yidhi nin adhi jira raaci da'nin ilaahay baan ku dhaartay waxaa tahay buu nin adhi jira wa hal yaruddu lmunhazima shay-un oo ruuxu kol hadduu jabo buu yidhi oo la jebiyo waxba celiya nin waxaa tahay buu yidhi adhi jir aan waxba kala ogeyn baa tahay buu yidhi nin jabay waxba celin kara buu yidhi innahaa in kaanat laka haddaad aduu iska sugnaato lam yanfacaka ilaa rajulun in kaanat laka hadday adig kuu sugnaato lam yanfac kuma anfacaysa buu yidhi ilaa rajulun bisayfihi wa rumxihi haddii adiga wax kasta kuu sugnaada maalinkaa kuma anfacaya buu yidhi faqad ilaa nin seeftiisii warankiisa wata mooye wain kaana calayka hadday adiga korkaaga noqotona
fadaxta fii ahlika wa maalika ehelkaagii baa laguu fadeexeeyey buu yidhi iyo carruurtaadii marka labada midna kuma fiicna buu yidhi ho inaad carruur iyo soo kaxaysato ma fiicnuu yidhi sababkana wuu caddeeyo wuxuu yidhi in kaana laka haddaabad adigu maaragtay aad dagaalka aad ka hesho aada hesho marka waxa ku anficun buu yidhi nin seef iyo waran wata haddii aad fadeexowdo oo dagaalka waxa weeye lagaa badiyana fadaxta fii ahlika wa maalika buu yidhi maalkaagii iyo ehelkaagii baa lagu hor ceebeeyey buu yidhi uma sa'ala wuu weydiiyey can bacdi albutuun qabaa'ilka qaar wa ru'asaa buu weydiiyey dad madaxa uma qaala wuxuu yidhi yaa maalik maalikow innaka adigu lam tasnac ma adan samayn bitaqdiima baydatin hawaasin ilaa nuxuuri alkhayli shay-an nacam wuxuu yidhi imaqal buu yidhi yaa maalik maalik innaka lam tasnac ma adan samayn bitaqdiimi baydati hawaasin inaad horumarintooda ilaa nuxuuril khayri aada u soo hormarisay faraska hortoosa aad keentay dagaalka aad hor keentay shay-an waxa ma aadan samayn buu yidhi arficum kor u qaad buu yidhi ilaa mumtanici bilaadihim wa culayaa'i qowmihim wuxuu yidhi kor u qaado arficum kor u qaad ilaa mumtanici bilaadihim beledkooda meesha yani waxa weeye difaaca lahayd geli wa culayaa'i qowmihim iyo qoladooda meelaha ugu sarraysa uma alsiqi sibaata waxaad ku dhajisaa buu yidhi assubaata mutuunal khayli marka waxaad alqi subaata calaa mutuunal khayli fain kaanat laka xaqun laxiqa bika man waraa'aka wain kaanat calayka alfaadu dalika waqad axrasta ahlaka wa maalaka kolkaas wuxuu yidhi uma alqa subaata carruurtana waxaad ku dhajisaa buu calaa mutuunil khayli faraska saar fain kaanad laka hadday kuu sugnaado fain kaana laka hadday adigu aad dagaalka ku rayso laxiqa bika waxa ku soo haleeli man waraa'aka kuwa kaa dambeeya wain kaanad calayka haddii macnaha waxa weeye lagaa reeyana alfaaka daalika macnaha arrintaas way ku nabadgelinaysaa waqad axrasta ahlaka reerkaagina waad ilaalisay wa maalaka xoolahaaga haddaad marka adigu aad waxa weeye lagaa reeyana reerkii baad markaa naga madgelisay buu yidhi oo dadkii baad la carartay kolka wuu tilmaamay wuxuu yidhi niyow sidan aad yeeshay ma aha eed carruurtii iyo aad hor keentay dagaalka ma aha buu yidhi hawshaas hawl fiican maaha walaakina maalika ninka maalig la yidhaah alqaa'idi ee madaxa ahaa alcaam rafada haada dalab wuu diiday arrintaa qaa'ilan wuxuu yidhi wallaahi la afcalu ma samaynayo yidhi innaka qad kabirta waad weynaatay waad nin weyn baad noqotay buu yidhi wa kabura caqligaaguna waad weynaaday wallaahi lan tudiicanii hawaasinu ow la ata'akanu calaa haada sayf ya wuxuu yidhi la tudiicanii hawaasin way iyeeli hawaasinu ow la ata'akana calaa haada sayf xataa yakhruja min dahri wallaahi wuxuu yidhi ama ree hawaasin way iyeelayaan ama waa manistili buu yidhi nacam oo sababtaa intaan ku joogsaday yaan dhabarka isaga bixinaya wa kariha an yakuuna wuxuu diidaday wa kariha wuxuu karahay an yakuuna lidurayd fiiha dikrun ow ra'y wuxuu nacay in ninka durayd la yidhaha uu meeshan ra'yi ku lahaadaba fa qaaluu waxay ku dhaheen adacnaaka waanu ku adeecnay fa qaala durayd baa wuxuu yidhi haadaakani yowmun maalin weeye lam ashaddu aanan arag weligay maalin anaa arag weeye walam yafutnii maalin aanan xaadirin weeye igamana tegin buu yidhi walam yafutnii imana dhaafinba hadda ka hor dayb waa maalin ana arag buu yidhi maanta yaa laytanii kuntu fiiha jadcan akhubu fiiha waadac aquudu wasdifaa'a alzamqi kaannahaa shaatun sadaqi marka shicir buu tiriyey calaa ayi xaal yaa laytanii fiiha jadcun yaa laytanii shallaytadeede ana kuna fiiha jadcun buu yidhi haddaan nin yar ahaan lahaa akhubu fiihaa wa adacu buu yidhi oon dagaalka markaa akhubu macnaha dhexgalaya dagaalka wa adacu si fiican aan u dhexgalayo aquudu aan horinayo wa difaa'u zamqi oo kolla wuxuu yidhi aan horinhayo buu yidhi marna aan baktiinhayo ka annahaa shaatu sadqin iyadood moodaba ri oo kale macnaha wuxuu ka hadlayaa haddaan nin yar ahaan lahaa dagaalka si fiican u geli karo ya
kolka shicirkaasuu ninkaasi tiriyey laakiin ra'yigiisa lama qaadan. silaaxu iktishaaful cadowi وجاءت إلى مالك عيون كانت قد بعثتهم لاكتساب عن المسلمين marka ciidan buu dirsaday wuxuu yidhi bal muslimiintu intay noo soo jiraan soo fiiriya. جاءت waxa u timid هذه العيون dadkii uu dirsaday waqad faraqat awsaaluhum iyagoo cabsanaya. qaala wuxuu yidhi waylakum awsaaluhum ta waxa weeye jidhkoodii baa cabsanaya xididadoodii. waqaala wuxuu yidhi waylakum maa sha'nukum qaalu waxayna rahaynaa waxaan aragnay rijaalan rag baan aragnay biidan oo cadcad calaa khaylin balqin oo farda saaran wallaahi maa tamaasaknaa an asaabanaa maa taraa. wallaahi waxaan ilaahay baan ku dhaaranay maa tamaasaknaa ma isma qabsan karno an asaabanaa inuu nagu dhaco maa taraa waxaad aragtahay. had waxa nagu dhaca waxba iskama qaban karnay dhehen. dayb silaaxu iktishaaf rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam. muslimiinta marka iyaguna hubka dad bay soo dirsadeen si ay u ogaadaan gaalada. wa naqalat alakhbaaru ilaa rasuulillahi rasuulka waxaa loo sheegay bimasiiril caduwi cadowgi inuu soo socdo. fa bacata wuxuu diray abaa xudayd al aslami nin la yidhaah wa amarahu wuxuu amray an yadkhula fi nnaasi dadka dhexgal buu yidhi fa yuqima bihim iskala joog xataa yaclama cilmahum ilaa aad ka ogaato uma yaatihi bikhabarihim fa facala. wuxuu yidhi u tagoo adig kaama shakisna intaad u tagto marka war nooga keen buu yidhi nimanka rasuulku sala allahu calayhi wasalam. siiradu aad bay u macaan tahay ruuxa muslimka inuu bartaa loo baahan yahay. arasuulu yuqaadiru makkata ilaa xunayn. nabigu markaas maku ka soo baxay xunayn buu marka soo aaday dagaal wey marka. wa fii yowmi sabti maalin sabtiya asaadisi oo 6 ahayd min shahri shuwaal bisha lixaad shuwaal 6 tahay sanata 80 markay ahayd qaadara rasuulullahi rasuulka ilaah uu ka yimid makuu ka yimid. wa kaana dalika alyowm 19 bay ahayd maalin 19aad min yowmi dukhuulihi fii makkata markuu maka soo galay 19 beri umuuba joogay soo baxay. kharaja nabigu uu baxay fii 12,000 min almuslimiin 12,000 oo muslimiin ah. 10,000 miman kaanuu kharajuu macahu lifatxi makkata 10,000 waxay ahaayeen dadkii nabiga la socday markii maka la furayey. wa 2,000 min ahli makkata dadkii maka kaga soo biiray islaamka soo galay bay ahayd. wa aktaruhum xadiithuu cahdin bilislaam kuwaa 2,000 muslimka uu ku osbaayeen. wastacaara wuxuu nabigu ka soo ergistay min safwaan ibni umaya ninka la yidhaah 100 dircin biadaatiha 100 dirac buu ka soo qaatay ninkaa. wastacmala calaa makkata makana wuxuu uga yimid cataab ibnu usayd nin la yidhaah. makana nabigu markaa wuxuu kaga tegay cataab ibnu usayd yuu yidhi sii ilaali oo aduu madax ka ahow. walamaa kaana markuu ahaaday cashiyatun markay galab ahayd jaa'a faarisu nin farisa u yimid fa qaala wuxuu yidhi innii dhalactu waxaan koray jabala kada wa kada buurta heblo la yidhaah baan koray. fa idaa ana waxaaban ku sugnahay bihawaasin ree hawaasin calaa bakrati abihim bidaciinihim wa nicamihim wa sha'atihim. wuxuu yidhi waxaan arkay buu yidhi ree hawaasinoo kulli can bakrati ama waxba aan kalka hadhin bidacnihim dumarkoodii wa nacamihim xoolahoodii wa sha'atihim adhigoodii. fatabarasaba rasuulkaa muusooday wa qaala wuxuu yidhi tilka khaniimatu lmuslimiin taa iska daa buu yidhi muslimiintaa leh hadan in sha allah. wa tadawaca lilxiraasati tilka leyl anas ibnu abi marthad alghanawiyu. maalinkaa waxaa nabiga ilaalinayay habeenkaa nin la yidhaaho anas ibnu abi marthad alghanawi. wa fii dariiqihim ilaa xunayn markay muslimiintu xunayn kusoo socdeen ra-ow waxay adeereen sidratan cadiima waxay arkeen geed gobahoo weyn khadraa oo doog ah yuqaalu lahaa la yidhaaho daatu anwaad baa magaceeda loodhan jiray. kaana alcarabu carabtii horaa tacallaqu calayha aslixatahum hubkooday ku xidhi jireen. wayadbaxuuna cindaha way ku gowrici jireen wayackufuuna way ku ictikaafi jireen. faqaala bacdu aljeish baa waxay dhaheen lirasuulillaahi ijcal lanaa daata anwaad maa noo samaysa annagana kamaa kaana lahum daatu anwaad qoladaa horeba say daatu anwaad u lahayd annagana maad mid noo yeeshid
faqaala nabigu wuxuu yidhi allahu akbar ilaahay baa weyn. qultum ilaahay waxaad tidhaheen waladii ilaahay baan ku dhaartay nafsii iyo abuurey nafsii naftaydu bimaxamedin nafsi maxamedin biyadihi ilaahay maxamed gacantiisa ku abuuraan ku dhaartee kamaa qaala qowmu muusa reer muuse qoladiisa say dheheen unbaad tidheen maxay dheheen ijcal lanaa loo yeel lanaa annaga ilaahan ilaah noo yeel kamaa lahum aaliha say ilaahyaha u leeyihiin. qaala wuxuu yidhi muusa inakum idinku qowmun qolaa tihiin tajhaluuna oo jaahilnimo samaynaya jaahiliina. inahaa sunan buu yidhi nabigu waa sunankaa unbaad ku socoteen la tarkabunna sunana man kaana qablakum waxaad raacaysaa buu yidhi sunnadaa dadkaa idinka horreeyey ayuu ku yidhi nabigu waa jaahilnimo hadalkaasi ma fiicneen. waqad kaana bacduhum qaala yidhi nadaran likatrati aljeish qaadna waxay dheheen asxaabta iyagoo fiirinaya ciidanka farihiisa lan naqlama alyooma bay dheheen maasha waxay naga qaalib noqon karaa ma jiro. wa kaana qad shaqa daalika calaa rasuulillahi sal l arrintaasna nabiga way dhibtay oo guruurka lama rabo ruux inuu ku qarqoomo ciidanka badan iyo waxaa inuu ishiraa laygama badin karo ma aha. marka siradu aada bay u macaan tahay insha allahu tacaala marka dambe ayaan dhammaystiraynaa jeyshkan dagaalkan xuneyn ka dhacay marka ugu dambeyntii muslimiinta ayaa guuleystay. ilaahay haynagu anfaco siirada nabiga iyo midhaheeda wallahu aclam sala allah ala sayidina maxamed wala ali